السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن داوديان هل كان وتلفزيون كفيوس حرون كجحيم مقالة مقدشو وهذه aynu ugu barteen inaan hawadiina soo marsiino wararka caalamka daabiisa inaga soo gaaray warka intuu hawada ka baxay anigoo Sharmaaka Xuseen ayaa idin warami doona qodobada waxa qayb ka ah isimada dhaqanka Soomaaliya oo kala taageeray mucaaradka iyo dawladda laamaha ammaanka iyo bulshada buuhoodle oo dagaal culus kula jira maandooriyaha khamriga taliyaha cusub qaybta booliiska gobolka Bari oo amar ku siiyay saraakiishii shaqada markaa laga bedelay in ay muddo 6 bilood si wadaan howlahaasi kulan loogu aarinsanayay xaaladaha bini'aadanimo ee Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho senator Ilyas Gaboose oo ku baaqay in la xoojiyo taageerida ciidanka Jubbaland ee ku sugan furmaha dagaalka wararka Soomaalida ka baxsan daawadayaal waxa ka mid ah Iran oo dalalka madaxa banaan ku boorisay inay ka hortagaan cadaadiska waddanka Mareykanka intaasi hordhac warka ay ahaayeen u diyaar garow warkaas oo dhameystiran isimada dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa ay kala taageereen mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya wariyaha Maxamed Ali Siyaad ayaa inoo dhameystiraya dhaqanka waxaan kula talinayaa anigu siyaasadda aan ka baxno dalku dawlad buu leeyahay nidaam buu leeyahay maanta waxa weeye dastuurkiina waxa weeye waa inoo dhameystiraya waxa weeye wan ma wafadna diyaar beenuna waxaa sii xoogaysanaya dooda ka dhex taagan isimada dhaqanka Soomaaliyeed kadib hadalla iskhilaafsan ay xalay ka jeediyeen kulan casho ah uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isimada ayaa u kala jabay laba garab dhinacna waxa ay taageereen dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinacna waa ay ka soo horjeesteen isimada taageertay dawladda ayaa waxa ugu horeeyay Garajaamac Garaad Ismaaciil balse jawaab kululaya waxa uu kala kulmay Ugaas Maxamed Ugaas Kayse kaas oo ka hadlay doorka isimada iyo xaaladda siyaasadda ee dalka Garajaamac Garaad Ismaaciil ayaa sacad u difaacay dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoo dhaliil u jeediyay qaar ka mid ah isimada dhaqanka wuxuuna ku eedeeyay in isimada qaarkood ay ku milmeen siyaasadda isla markaana ay adeegsanayaan siyaasiyiin dana gaar ah leh garaadka ayaa carabka ku adkeeyay in isimada ay ka baxaan faragelinta siyaasadda waxaana sacad uu isimada ugu sheegay in dalka madaxweyne uu leeyahay dastuurkii la dhameystiray doorashaduna ay tahay qof iyo cod halkan waxaynu isugu nimi على مسارك وقاسك مركين نمينا وحوي سياسيين بين الحرطي إنك لبسجينه وحوي وين الحرطنا يو هل كل الربيعين نوع مسنوت لذينا إنه وين قارو تشنو وحوي إنك لبسجينه وده بود مركوا حنله دقن كه ثلاثة سجنو وحوي سياسة دي دقن كوا كلا لبو وحي سياسة تطبع الله دورتي wixii dhaqanay inaga loo doortay inagu marjac bayna inaga waxa weeye marka waxa weeye xaaladdu ay isbedesho baynu u baahanahay inaynu tala ka gaadhno laakiin haddii inagu marka hore horboodno oo aanu dhalin jeedino ama aynu qaar taageerno brito waxa weeye marjacii odaynimadu meel kale ka geliya dhaqanka waxaan kula talinayaa anigu siyaasadda aan ka baxno dalku dawlad buu leeyahay nidaam buu leeyahay maanta waxa weeye dastuurkiina waxa weeye waa inoo dhameystiray waxa weeye wan ma wafadna diyaar beenuna markaan waxaan leeyahay hadii ay wax jiraan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dalka adiga madaxweyne ka cid allaali cid wax tabanaysa waxa weeye inaad u yeedho oo hor fadhiisato oo aad wada hadalshaan waa waajib weey annaguna waxa weeye shaqadeedu waxay tahay markaad wada hadalshaan oo aad fadhiisataan haddaad heshiisaan waa heshiiseen haddaad heshiin weedeena 135 waday baa jooga dhanka kale Ugaas Maxamed Ugaas Kayse ayaa sacad uga falceliyay hadalka Garajaamac isagoo difaacay xaqa isimada ay u leeyihiin inay ka hadlaan xaaladda dalka Ugaaska ayaa xusay in isimada hore ay ugu lahaayeen arrimaha siyaasadda xilligii la dhisayay maamulada dalka sidaas daraadeedna aysan sax ahayn in maanta laga reebo wuxuuna yiri Garajaamac waqooyi bari markii aad dhisayseen waxaad ku jirtay siyaasadda maanta dalkoo dhan baa halis galaya haddii aan laga hadlin xaaladda taagan intaasi waxaa sii dheer isimada kale ay ka mid yihiin Imaam Daahir Garajaamac Garaad Cali Islaan Ciise iyo Ugaas Maxamed ayaa fariin midaysan u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna ugu baaqeen in uu talada dhulka dhigo dhageysto codadka mucaaradka
odayaasha dhaqankana uu siiyo doorkooda si looga baaqsado khilaaf siyaasadeed uu sii xoogaysan karaa. baaqan cusub ayaa waxa uu muujinayaa walaacaasi soo taraya ee ku saabsan jihada siyaasadeed ee dalka iyo baahiyaha loo qabo wadatashiyo ballaaran oo u dhexeeya dowladda mucaaradka iyo isimada dhaqanka. guud ahaan xaaladdan ayaa muujinaysa isjiijiid u dhexeeya laba aragtiyadood oo kala duwan, mid aaminsan in isimada ay ka fogaadaan siyaasadda si loo xoojiyo nidaamka dowladnimada, iyo kuwo kale oo qaba in isimada door muhiim ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka iyo hagaajinta bulshada. doodan sii xoogaysanaysa ayaa la filayaa inay saameyn ku yeelato mustaqbalka siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna qorshaha ku wajahan hirgelinta doorashooyinka qof iyo codka ah. hagaag aan ku bilaabay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay kiis hadalhayn badan ka dhex dhaliyay bulshada Soomaaliyeed sida ay ku waramayso wariyahayaga ayaan Yuusuf Faarax. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo bandhigtay kiis si weyn uga yaabiyay shacabka Soomaaliyeed kaasi oo ka turjumaya cabashooyinka la xiriira tacadiyada ay mararka qaar shacabka u geystaan qaar ka mid ah askarta. kiiskan ayaa la xiriira askari ka tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka NISA oo si bareer ah xabad ugu furaya muwaadin ganacsade ah oo ku sugnaa goobtiisa ganacsi. muwaadinkan oo dhaawac ka soo gaaray falkaasi ayaa maxkamadda si faahfaahsan uga sharaxay falkaasi, isagoo sidoo kale faahfaahin ka bixiyay xaaladii uu soo maray iyo dhibaatadii uu kala kulmay falkaasi. 3 saac bari aan aaday meesha xamuweyne waxa u doontay telefoon aan u raasay oo maraafaha ay furneed telefoonkaas ka soo qaadanayay meeshaas kiiskaas waa jiraa naan guuray qalqalgelin iyo waxa ku soo haray iyo dhaawac waa jiraa soo dhaca dhaawac falkaas u dhacay watoona meesha waa imid shaqadan ka soo baxay fasax waxaa lahaa oo 3 saac birafa alaha xamroweyna imid xamroweyna imid ninkan oo walaalkaya oo dhibanaha falka geystay dhibkaas oo saxada dhaafnay markaas ka bacdi macnaha xanaaqa ay tabatay xabadda ay fakatay. xabadda xagee uga dhacday dhibanaha meel u dhaca mishii kan laakisani goobtii waa ka tagay falkii xaafadaas gal wax gurmada muu fidisay dhibanaha gurmada oo fidin. maxaa keenay inaad nin ganacsada ah goobtiisa shaqada joogo inaad xabad ku dhufatid isla markaasna aad goobta ka baxsatid? maxaa keenay xaafada tagay laakiin waxaan qoranaayeen wana dhaceen ninka dhibanahana oo walaalkaya dhibaha ka galay xaafadda waa laga heshiiyey waa laga xaabtay. maxaa kala dhexeeyay dhibanaha waxaana ma dhahayn maxaa keenay in xabadaad ninkii ku dhufatid asagoo ganacsigiisa joogo goobtiisa shaqada joogo murna dhahday murankaas maxkamaddu sharax maxaa is dhaafsateen? hadalla ayaa isdhaafsanay hadalladaas waa isdhaafsanay oo meeshaas yarkaas ii banay aan dhahay ibna waay markii baa haal ugu tuuray ana hadalkii xanaaqay xabada ugu jawaabay. adiga goobtaas maxaa ka doontay maxaa soo socotay marka macnaha adeega marxaba macnaha telefoon ay furnaa mobilka ka qaadan jiray mobilka aan ka qaadanayay wixii qorshada aan u soo tagay mobilka soo doontay falkaas dhac falkii markuu dhacay meesha waa ka carroon. maxkamaddu sharax say wax u dhaceen. maalin maalmaha ka mid ah anuu goobtii shaqo joogo ninkaan imaaday ninkaan xasan ay shaqaynin salaan u saaray meesha gudaha igu soo galay markuu gudaha igu soo galay waxaa idin meesha maxaa kuu baneeyey maxaa ka bedeli kartaa uu yiri waa shay isku gooy adiga kulli waa u naqday wuu aflagaadiyey waa uga naqay wuu soo kala wareegay xabadii u saaray mar waa ka wareegay markii dambe xabad nab ugu yiri waa dhaca aniga gadaalan ku dhacay dadka ninkiina waa banaanka u baxay goolka laga irdadow leedida kale ka baxay markii xabadii ugu dhacday wuu soo laabtay waa soo laabtay wuxuu isdhahay inuu dhamaystir muu rabay ma aqaan wuu soo laabtay saasuu ii fiirshay markii xabadii dadkiga soo yoolay yoolkii markay soo yooleen dadkii ninkii waa carray mooto ku carray moota meeshuu taagay mooto ku carray adiga uu carrinkan uu carray gacana dowladdu goorma gelisay waxaa la qabtay gulixu yaa lahay halaasan ka oga aniga wixii dhacay way dhaceen dadkan dad walaalo waaye waa la heshiiyey marka ninkan walaalo waana waa iska cafiyey. eedeysanaha iyo adiga inaad is afgaartaan
xabad kugu dhufto maxaa keenaya wallaahi taas ma sheegi karo ninkan iska xanaaqsan waayo meesha ku imaanayay xanaaquu meesha ku imaaday xanaaqna dhibkaa igula dhaca meeqa xabaa kugu dhacday laga hal xabaa igu dhacday intee kaga dhacday sintaan uga saaray qoro way saaray afsaar waa qoray wax hadda doo wayga fakada dhahay asiga iyo helkiis waa afsaar qoro gaxay waa isaari way martay labada loo isku martay xaniya gadaal way ka martay doctoraa dhigay alxamdulilah shukr bil caalamiin waxaa la dhahay waa caafimaad qabtaa dalkii adiga waa wada fadhiisteen aniga hadda wax ay ku heshiiyeen hadda aan shir kale ma og laakiin aniga uu inta la imaaday inuu intaasoo maalmadan sare u saaray ilma u shaqaysay wax la uu soo laabtoon ogaho hadda aniga ay shir kale ma jiraan laamaha ammaanka iyo bulshada Buuhoodle ayaa dagaal culus kula jiro maandooriyaha khamriga warkaasi waxaa inoo faahfaahinay wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Sheekdoon magaalada Buuhoodle waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo ka dhan ah maandooriyaha gaar ahaan khamriga kuwaasi oo iska kaashanayaan laamaha ammaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada howlgalkani ayaa lagu bartilmaameysanayaa dadka ku lugta leh cabista iyo ka ganacsiga maandooriyaha iyadoo la doonayo in la xakameeyo saameynta uu ku yeelan karo khamriga bulshada gaar ahaan dhalinyarada sida uu sheegay xildhibaan Caawil ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay in ay qabtaan 15 qof oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin cabista iyo kan ganacsiga khamriga dadkan ayaa hadda ku jira gacanta hay'adaha amniga waxaana la filayaa in la marsiiyo habraaca sharciga dhinaca gudaha xaaladda amnigu way fiican tahay marka laga reebo dad hadda magaalada Buuhoodle gudaheeda ku soo kordhay oo maandooriyaha ama ka ganacsada ama cabba dadkaas iyadoo ay markii hore ahayd dad gooniya in loo yaqaano ama ay cabbaan ama maartay meelo gooniya aad muddo hadda inuu dadkii kale ku fiday oo ku soo yaro kordhay taasna shaqooyin fiican baan ka qabanay oo xagga booliska iyo bulshada baraarujinteeda hadday tahay waxaana la soo gudbiyay hadeer oo la soo xidhay dad gaadhaya 15 maxbuus oo qaybtoodna gadayeen qaybtoodna ay cabayeen ama cabi jireen taasna meel fiican bay maraysaa xaaladda biyaha hadiiba aad hesho iyadoo duruufta lagu helayaa bay adag tahay haddii aad hesho foostada biyaha ay Buuhoodle waxay ka maraysaa $7 halka ay ka marayso magaalada Laascaanood 0.8 iyadoo dadkii looga soo guuray gobolka Sanaag iyo Soolba xoolihii qardha ka yimid baa waxay ka cabayaan xadhan sida laajigeed baad la'aan iyo biyo la'aan baahsan baa la odhan karaa way ka jirtaa oo u gooniya marka loo eego gobolada kale ee waddanka waxaa la odhan karayaa xaaladda abaareed ee Buuhoodle lagu cabiraay waa xaalad aad u adag iyadoo xooluhu hadeer xitaa ay gaadhay inay baxayaan baad la'aan meeshii dee u dambaysay waxaan soo jeedinayaa in loo yeedho ama warbixin guddida ku kusaysa looga diro guddida abaaraha intaas baan maartay warbixinta ku soo koobaya taliyaha cusub qaybta booliiska gobolka Bari ayaa taliyihii hore ka codsaday in shaqada uu sii wado muddo 6 bilood ah wariyahayaga ayaan Yuusuf Faarax ayaa inoo faahfaahinaysa taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaale Sare Siciid Aadan Siciid ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka hoggaanka cusub ee qaybta booliiska gobolka Bari taliyaha ayaa si cad u sheegay in muddo 6 bilood ah uu shaqadaasi wadi doono taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Bari Sareeye Guuto Cabdulqaadir Jaamac Dirir inta uu shaqadan cusub kala qabsanayo dhinaca kale taliyaha cusub waxa uu sheegay in muddadaasi 6 bilood ah wixii qabsooma uu ammaanteeda leeyahay taliya Dirir wixii qaldamana dhaliisheeda uu leeyahay isla taliyihii hore maadaama uu sheegay in
muddadaasi 6 bilood ah uu la shaqayn doono si ku meel gaar ah. taliya dirir waxaan uga mahadcelinayaa shaqada ballaaran oo uu qabtay oo uu ku mutaystay dalcaadda iyo abaalmarinta boqolkiiba boqol waan uga mahadcelinayaa. waxaan kaloo ka codsanayaa inuu sidii u shaqaynayay uu ila shaqeeyo oo dalka iyo dadka u shaqaynayay dadka iyo dalkiina sidii bay u jiraan inuu sidii u qaato oo u shaqeeyo. waxaan u sheegay 6 bilood oo soo socota inuu meesha taliya ka ahaanayo inta aan meesha kala qabsanayo oo shaqada aan ka fahmayo sidii uu wax ku waday inaan ku wadayo wixii tala iyo tusaale uu soo jeedayana inaan sida ay tahay ku dabaqayo ku fulinayo. runtii waa jiraan qabaa'ilo iyo odayaal iyo dad badan oo ila soo xarurayo wiilka halkaasaan la rabnaa wiilka halkaasaan la rabnaa. runtii waxaan ugu jawaabay 6 bilood oo soo socotay meeshaas waxaan ahay magacayaal wixii ka qabsamana waxaa qabtay sareeyo guuto cabdiqaadir jaamac diriir wixii ka xumaadana asagaa ka xumeeyey anigu waa daba fadhiisanayaa. runtii marka waan ku faraxsanahay taliye la dallacsiiyey oo faraxsan inaan xilka kala wareegayo bulsho markaan isku duuban oo ka soo horjeedo la argagixisada soo macnihii ka rexsato dhibsatay daraagiska cabtoyda bulsho soo jeedo oo fiyow oo dhanka wanaagga maanta u jeeda inaan taliyo u noqonayo ku hogaaminayo. waxaa kaloo qorshahaygu yahay haddii alla idmo in aan bulshada si gaargaara ula shiro sida culimada dhaqanka nabadoonnada ururada bulshada haweenka dhallinyarada sidoo kale ciidamada ka howlgalaya gobolka bari ee hoos imaanayo. waxaan rabnaa inaanu wacyigooda kor u qaadno. runtii hadda xarumaha inta badan waa tayaysan yihiin oo goobta aan joognaa marqaarteyn oo ah kulan looga arrinsanayay xaaladda bini'aadanimada ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. wariyahayaga Maxamed Cali Siyaad hayno oo dhameystiro. gudoomiyaha hay'adda maareynta iyo mas'uuliyadda qaranka ee Sodma ayaa kulan muhiim ah wuxuu la qaatay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada iyo isuduwaha gargaarka degdega ah oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. labada dhinac ayaa si qoto dheer waxay uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah si loo dardargeliyo gurmadka bini'aadanimada loona gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen gurmad degdeg ah. gudoomiyaha hay'adda Sodma ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay la shaqeyso hay'adaha caalamiga si loo helo xal waara. halka mas'uulka ka socday qaramada midoobana uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada gurmadka degdega ah. waxaan kulan soo dhaweyn iyo kala warqaadasho ah aan kula yeelanay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee xagga arrimaha bini'aadanimada kaasoo booqasho rasmi ah ku yimid dalka Soomaaliya si uu ku wargalo xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka Soomaaliya. waxaan warbixin ka siinay xaaladda guud xagga bini'aadanimada ee dalka iyo sidoo kale kaalinta ay ka qaataan qaybaha kala duwan bulshada Soomaaliyeed haddii ahaan lahayd dowladda Soomaaliya haddii ahaan lahayd businesska ama private sectorka iyo bulshada rayidka intaaba. runtii aad ayuu mataqaana u soo dhaweeyey hawlaha wanaagsan oo ay dadka Soomaaliyeed qabsanayaan. waxaan warbixin fiican ka siinay gurmadka ugu dambeeyay abaaraha oo ay ka qayb qaateen dhammaan dadka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadda intaba. runtii iyo kaalinta mataqaana private sectorka iyo ganacsatada sida hadda Hormuud Salaam Foundation oo sidaad ogtihiin 3 bilood ee lasoo dhaafay biyadaamin ka waday dhammaan gobolada ay saameeyeen abaaraha. wuxuu noo sheegay in arrinta Soomaaliya ay u tahay mataqaana mudnaanta koowaad isla markaasna uu ka shaqeyn doono sida Soomaaliya lacagihii laga jaray ee xagga bini'aadanimada uu ka shaqeyn doono mataqaana in dib loogu soo celiyo si walbaba isaga oo noo macnaha sheegay inuu rabo qorshooyin kala duwan oo ujeedadiisu ay tahay in dalka Soomaaliya mataqaana uu helo taageero macnaha ka ballaaran mid uu maanta helayo. noo sheegay inuu sii joogi doono 2 maalin ay soo socoto si uu arrimaha mataqaana uu sii kurgalo. markii halkan ka tagana uu dabcan sii mari doono dalka Mareykanka. runtii marka fayad kulan aad iyo aad u muhiim ah. sidoo kale hay'adda Sodma ayaa warbixin fiican ka bixisay xaaladda saameynta abaaraha dalka ka socda ka jira iyo barnaamijka kala duwan oo ay mataqaana ay hogaaminayso. sidaad ogtihiin Sodma ayada ayaa hawlaha bini'aadanimada dalkeena
qaabilsan inay agaasinto waxaana jiro forum la yiraahdo country humanitarian forum ay isugu yimaadaan dhammaan hay'adaha ka shaqeeya bini'aadanimada laga soo bilaabo UN-ka hay'adaha caalamiga ah dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada aan private sector-ka intaba marka hay'adda Sodma waxa ay ka shaqeysay in macnaha hawlaha bini'aadanimada Soomaaliya ka socdo hadii aan lahayn kuwa hay'adaha caalamiga ah iyo UN-ka intaba iyo Soomaalidaba in mataqaanaa la isku duwo oo isku duwo fiican loo sameeyo sida ay ku waramayso wariyahayaga ayaa Yuusuf Faarax senatarkii maxbuuska ahaa ee dowladda federaalka ka tirsan isla markaana ku sugnaa in dhawaalaba magaalada Kismaayo waa senator Ilyas Gaboose ayaa ku baaqay in la taageero ciidamada furmaha dagaalka jooga ee Jubbaland ayaan hayno dhameystirto senator Ilyas Badal Gaboose ayaa sheegay in ay waajib tahay in mar walba la garab istaago ciidanka dowladda goboleedka Jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan furmaha hore ee dagaalka senatarka ayaa si gaar ah u bogaadiyay ciidanka daraawiishta ee ka howlgala deegaanka Janay Cabdalle iyo deegaanada kale ee hoos yimaada isagoo ku tilmaamay kuna ammaanay geesinimada iyo nafurnimada ay muujiyaan wuxuuna tilmaamay in ciidamadan ay si joogto ah habeen iyo maalin ugu jiraan howlgallo adag oo ka dhan ah Al-Shabaab sidoo kale waxa uu xusay in taageerida shacabka iyo mas'uuliyiinta ay muhiim u tahay dhiirigelinta ciidamada si ay u sii wadaan howlgalladooda amni oo ay ku difaacayaan dalka iyo dadkaba dhalinyarada nagu soo gaadhay dagaal nagala wareegtay aad baa u mahadsantiin ajirkeedana Allah idin siiyo dadkiina idinku hurda caruurtiina idinku hurda dawladdiina idinku dhisan sacrifice-ka aad samaynaysaan marka waa ku mahadsantiin aad iyo aad baa ugu mahadsantiin de wax mahad ka weyn oon idin dhahnana ma garanayno dawladda waan dhahaynaa war raggaas saraakiishooda iyo askartoodaba dalacsiin askari dalacsiin buu jecel yahay war dalacsiin raggaa loo raadiyana waan dhahaynaa haddii alla idmo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaana socodkii u horreeyey aana noqon ama kii u dambeeyey guulaysta waan idin garab taagannahay ayadoon tii ruushka ahayn tii rasmiga ahayda yaa idin garab taagannahay guul baan idin rajaynaynaa idinka iyo dowladdiinna iyo wasaaradaha saaxiibada ee meesha ka shaqaynhaya ma jirto korneelkaa sheegay roob maalin lama dhisine wasaaradaha waxa ka dhidhimanna waa la dhammaystiri doonaa insha allah weligeed inta la nool yahay waxunbaa dhimanaan doona adduunku waa 9 ma lahaba nin 10 adduunka gaadhsiin karaa ma jiro adoo uun 10 hal la gaadho baad meesha dham ka tegi marka waa ku faraxsannahay maashaannaga iyo la kulankiina waraacda fiican noo samaysay waa ku mahadsantiin ciidanka nagu salaama waxaan filayaa waa barqinoo ciidan saacadda jooga ninna inuu dhex maro nin uu taliya ka amoyo iska adag tahay waajibaadkoodii bay ku kala maqan yihiin marka nagu salaamo guud ahaan waayaga wili daawadayaal waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta VOS iminkasta wararka caalamka Iiraan ayaa dalalka madaxa banaan ku boorisay in ay ka hortagaan cadaadiska Mareykanka wasiir ku-xigeenka difaaca Iiraan ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu la wadaago khibradiisa military dalalka madaxa banaan gaar ahaan kuwa xubnaha ka ah ururka iskaashiga Shanghai mas'uulkan ayaa tilmaamay in Iiraan ay si buuxda u diyaarsan tahay inay taageero aqooneed iyo istaraatiijiyad siiso dalalka doonaya inay ka hortagaan cadaadiska dibadda isagoo si gaar ah u xusay awoodaha ay leeyihiin in ay la tacaalaan Mareykanka hadalkan ayaa imaanaya xilli xiisadaha gobolka ay sare u kaceen kadib markii Iiraan ay weeraro isugu jiro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska iyo gantaalo ku qaaday dalalka dariska iyo sidoo kale Israa'iil intii uu socday dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka guud ahaan muuqaalkaasi daawadayaal waxa uu gunaanud u ahaa warka warbaahinta VOS oo xilligan idinkaga imaanayay xarunta dhexe magaalada Muqdisho anigoo Sharmaaka ayaa idin waramay oo ku mahadsantiin daawashada warka